بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أين كقادنا آيات 6 سورة ياسين. فقال الله تعالى: وما نزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إلهي سبحانه وتعالى وما نزلنا على قومه، حول رب سبحانه وتعالى وما أنزلنا ما نندجنن على قومه حبيب النجار نكي لورنشري قولدي سمركي لهلاقي ما كسو دجنن من بعده جيريدي سكدب من جند عيدا كجمان سودجن من السماء samada ciidan malaayiga ilaahay kagamaan keenin buu yiri. wama kunna munziliina wama kunna ilaahay baa wuxuu yiri mana ahatii nagu haboon annaga wama kunna munziliina mananihin tay nagu haboontii inaan malaa'ig ku soo dejinaa oo uma qalmaan nimanka halaagooda in malaa'ig lagu soo dejiyo. إن كانت إلا صيحة واحدة. هذا السويدين سهلا قذي محوها إلهي باك جوابي إن كانت معنى ما كانت ميهان عقوبة لغوها لاقي إلا صيحة واحدة رواق كلية ملك الجبريل كيم أنبوها فإذا هم وضيق خامدون بختيي دمان سينو 10 كهره كسو مرنay saddex laba rasuul ayuu soo diray nabi ciise oo nimanka nasaaro oo ruum ku nool meel Andakiya la yiraahdo. dabadeedna labadii nin bay diideen wajaa min aqsal madiinati rajulun yas'a xasoo maraynin ordiya yimi wuxuu ku gabagaboobay hadalkiisa إني آمنت بربكم فاسمعوني. إلهي ما رميه مغلا لما أنتك كحناقي إلهي نرميه دبدنا نمك ويدلي نكي حبيب نشار لورين شري لبادي كلنا ويراعيه دبدنا إلهي بيد ادخل الجنة حين وير وانا مركز 10 كسكو حرمية جنة قلبها ليري يا كيري ملائكة. آيات إنه من دونت سورة الفصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. آيات وحي كورا بس المسلمين تين الملائكة تمادوا مركي نفط كبحيس مركي نفط كبحيس يبيكو يلادين ادخل الجنة سيدا السائل يقول الجنة قال مركي الجنة قالي قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت الله طلعي قومي يعلمون تلقي مي وقادان بما غفر لي ذنب دافك ربي ويفدي مي وقادان إلهي الرميان ألا مي وقادان وجعلني من المكرمين إنه لا يكون كرامي السنة قد مي وقادان. إلهي سبحانه وتعالى الكا markay ninkii xabiib najara gacanta ula tageen cadhay ilaahay baa dhacday nimankii waa la halaagay malku jibriil baa ku dhawaaqay ilaahay wuxuu inoo qormay marka wama anzalna man dajinin ala qawmihi qolada dishay xabiib najara oo tolkii ahayd kuma soo dajinin min bacdihi dilkiisa kadib من جند من السماء samada ciidama laga keeno malaa'igi may jirin oo halaagtay nimanka وما كنا منزلين
sideeda bana anigu ma yihiin mid malaa'ig samada ka dalbada haddaan ilaahay ahay maxaad ku halaagtay ilaahayow in kaanat ma yahayn halaaga nimankaasi ilaa sayxatan waaxida hal qayla ah oo malaku jibriil ku dhawaaqay bay ahayd faydaahum markii lagu qayliyeyba hum iyagu khaamiduuna way aamuseen khamada sideeda waxaa laga cabiraa dabku markuu baktiyo dee wixii qaylinayay ee rususha leynayay ee sanamada difaacayay ma lagu qayliyey way dhinteen sanqartan faydaahum khaam dab baktiyey oo kalun bay noqdeen waxaad yar dareemaysaa markii ilaahay uu yidhi wamaa anzalnaa calaa qawmin min bacdi min jundin min asamaa wamaa kunnaa munziliina sidaydabana malaa'ig uma dalbado ciidani caasiyey waxaad soo tii nebi muxamed ilaahay habeenkii yowmul axzaab wa anzalnaa junuudan uu yidhi beder sowta 3,000 amba 5,000 ee malaa'igta la soo dejiyey halkaa waxaa ku jira nebiyullaahi muxamed mooyaane ummad la caasiday oo malaa'ig loo dalbaday ma jiraanba laakiin nebiyullaahi muxamed sharafta ilaahay uu nebigaas siiyey khasaa'is badan buu lahaa markaa malag kale nebi kale oo malaa'ig ay u timi gurmadi may jirinoo qoomkiisii halaagaysa ladiifadaa yar baa ku jirta in kaanat ilaa sayxatan waaxida fidaa mukhaamid yaa xasratan cala alcibaad yaa xasratan qoomamo cala alcibaadi loo qoomamoodo kuwaasoo waa maalintaadii ee kaalay bay ka dhigan tahay oo xasradii ayaa waxaa laga dhigayaa sidii wax loo yeedhay oo wax maqlaysa qoomamo iyo calaacalow kaalaya waa maalintiinnii mar haddii xabiibnajaarna la dilay rusushiina la beeniyey yaa xasratan qoomamooy cala alcibaadi addoommo halaagsanaya ku timaaday waa maalintaadii ee kaalay waa iska maal qoomamadii waa tollaay oo kale un amba hoogey markaa yaa ereygan leh yaa xasratan cala alcibaadi yaa odhanaya dee nimankii afka wadama laga saaro ma jabeen ma halaagsameen dabeedna intii islaamka ahayd ee hadhay baa tidhi yaa xasratan cala alcibaad walle halkaa qoomamo addoommo alla ku dhacday baa ka dhacday waanay mutaysteen bay ka dhigan tahay malaa'igtaa tidhi muuminiintaa tidhi haddaynu leenayba meeshaa inay ilaahay rumeeyaan unbay hede yaa xasratan cala alcibaadi dee qoomamo addoommo loo qoomamoodaa halkaa ka dhacday unbay ka dhigan tahay mu'miniintuna way mudan yihiin addoommo ilaahay caasiyoo la halaagay inaynu calaacallo marka yaa xasratan qoomamo cala alcibaadi ku timadee waa maalintaadiiye haadaa awaanuku faxdurii buu jalaalay kuu qadaraya waa maalintaadiiye kaalay bay yidhaahdeen malaa'igtaa tidhi dabeedna waa la rogay maxaa lagu rogay in kaanat ilaa sayxatan waaxidatan waxaad ka fahamtay in hal mara lagu qayliyey faidaahum khaamiduuna dabeedna ay bakhtiyeen dabeedna markii la halaagay malaa'igtu ay tidhi yaa xasratan markii la halaagi doonay yaa xasratan qoomamo cala alcibaadi ku timaadee waa maalintaadiiyo kaalay dabadeedna nimankii waa la rogay ilaahay baa wuxuu yidhi dabadeedna maa ya'tiihim nimankaas sababta lagu rogay waxay ahayd maa ya'tiihim uma imanaynin min rasuulin ergey ilaahay umuu imanaynin ilaa hadduu ergey u yimi kaanuu waxay ahaayeen bihi ergeyga yastahzi'uuna sow labada hore may beeninine nebci soo diray ka dambana way beeniyeen beeninta ciyaar baa la socotay nimanka waxaa lagu halaagay maa yaatiihim uma imanin min rasuulin rasuul ilaa gaal la rogay dhammaan haddii nebi u yimaado kaanuu waxay ahaayeen bihi rasuulka u yimaada yastahzi'uuna kuwii ku ciyaara goormay qiyaamadu dhacaysa bilcirka jeex nagu soo dumi wuxuunbay akhriyayeen marka aayadda sababteeduna nebi muxamed baa laleeyahay waa la adkaysan jiray adkayso ilaa wadrib lahum
أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون بكسوا بلا منطق صدره واضرب لهم مثل المياه دول أصحاب القرية مثل ولدن كفار مكان نبي قال لها وعدي أو هي بيننا أو هي عيارنا وحي كوا كدعي أيايد كدعيه وحي كوا كدعي آية ضمبات كوكرنسا إن نبي قال الله تسليين أيوه إلهي بوعد سبحانه وتعالى ولم يروا نمن كان كفارتا ما كتشوكتا مياني أوغين كم أهلكنا إنا نهلاقني قبلهم يجا كهر من القرون ومضفر بدن إن للرغي قال هذا ما كتشوكتا مياني أوغين أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أولم يروا أهل مكة بين لنا كفار مكة شوكتا مياني كور قاذن قارهان كو النبي كل لست مرسلا كو النبي محمد كل الرسول متهد مياني أغين كم أهلكنا قبله إن بدن إنا نهلاقنا يقا كور من القرون ومضفر بدن يجا كهرين للرغي مياني أوغين مياني وليبا أوغين أنهم يجوا إليهم مكذبين ترمكتشوغا لا يرجعون إناني صنعون مياني أوغان وركا مياني هيلين تميوي أوغيهين دقيه لهي وانيا وانسان سيدا ولم يروا مياني أركين بدموده marka la leeyahay miyaanay arkaynin kufaarta maka joogta wixii ummad la rogay meelihii laga rogay aasaartooda miyaanay u muuqan kam ahlakna kam taasi waxay sheegaysaa in farabadan kam in badan baanu ahlakna rognay qablahum iyaga ka hor kufaaru makam min alqurun ummado intee baa la rogay ummado بالنبي عيسى كسوقات إلا النبي الله آدم إم سو مضود بالدين فربضان مياني كور قاضر حال لقول ربي نبي بينيين أو يكون عيارين لما كان مياني أوغين غير مكانين الهلاقي كم أهلكنا قبلهم من القرون طبعا أنهم القاوح إنه قدر كرا قضينا وحن حكومي oo aan qadaray annahum kufaarta la halaagay ilayhim makiyiinta maka joogta nabiga beeniyay la yarjicuuna qof ka soo noqon maayo wax sida loo rogay baa lagu rogay marka kuwana haday ilaahay rumayn waayaan wala rogi doonaan bay ka dhigantaa waxa kale oo inoo banaan awalam yaraw kama ahlakna qablahum min alquruni miyaanay ka war qaadanin in badan in la rogay ummado oo annahum kuwii la rogay ilayhim kuwa waqtiga nabiga joogay beeniyay la yarjicuuna marna qadarna baynu qadarayna oo waxa ilaahay xukmiyo wax dhintay inaanay soo noqonde ilaa qiyaamada marna kuwani miyaanay ogeyn inuu mado badan la rogayo aanay soo noqonaynin wixii la rogay aanay iyaga u imanin reer Makka إلهي بيدو وإن كل الخلائق بكدغنتي خلق دمانتي مجيرو إلا لما ذا صاب معنا إلهي إلا إن تنهرنا والنافيو هو إن كل ما كل الخلائق خلق دمانتي بمجيرو قال يا إسلام إلا هدو جيرو جميع دمانتود لدينا أنيق حقيقة يا محضرون الله صوته يا إلهي سبحانه وتعالى في قيامة ودعوه هي خلق دينتي قال يا إسلام أم بها للرجوع أم بها إسكدنتين وكل الخلائق دمانتود جميع معنا مجموعون وحلقوا كل من دونا يبوي إلهي لدينا أكتيدا لكيني يا قيامة موقف قانا حسابنا يا لدينا محضرون وخبر بعد محضرون دم وخبرون مجموع لدينا دمانتو جميع لدينا
dhammaan agtayda la keenaya ladaynaa un baa labadaba la shaqaynaysa ladaynaa muxdaruuna aniga agtayda la soo tubaya ina yar adagtibaad muddo laakiin markaad u fiirsato waxba ma adkaa wain kullun maa kullun dhammaan wixii dhintay jin iyo insi may dhimaninba lamaadun ilaa ka dhig haddaba ilaa jin iyo insi unbaa mukhallifiina wixii dhintay dhammaantood jamiicun ladaynaa muxdaruuna aniga agtaydaa la keenaya oo ilaynaa turjacuuna bay ka dhigan tahay anaa lay keenayaayo dabadeedna wixii naar mutaystana naar baan geynayaa wixii janno mutaystayna jannaan geynaya waxaa jira tafsiir kale oo lamaada miimtan aan ka dhigayno siliyo tawkiid maada laamkan lamaa ku jirana la jamiicun baynu keenaynaa taasina waxay noqonaysaa wain kullul khalaa'iqi maa kullul khalaa'iqi khalqi dhammaantii ma jiro la jamiicun dhammaantood ladaynaa agtayda ayaa qiyaamada muxdaruuna lasoo tubay lasoo xaadirinaya iskama imanayaan dadka dayli waa tuug baxsatay gaaladu muxdaruunadan waxaa looga jeedaa waa la soo xaadirinayaa ee soo xaadir maayaan gaaladu ilaahay baa lagu soo ururinayaa agtiisa si qiyaamadii ay u dhacdo oo janno iyo naar looga dira la tafsiirka hore laakiin fiican wain kullul khalaa'iqi maa kullul khalaa'iqi khalqi dhammaantii ma jirinba ilaa hadduu jiray oo ay dhinteen jamiicun dhammaantood ladaynaa agtayda ayaa muxdaruuna la soo tubi doonaa dabeedna xisaabtaan ku kala kaxaynaya waayatullah nimankaa reer makaa waxaa lagu salliday inay beeniyaan qiyaamada waxay odhan jireen bacthi ma jiro qiyaamana ma jirto kuwii idinka horreeyey waa la rogay cidi ka soo noqon mayso khalqigu dhammaanna ladaynaa muxdaruuna waa ka dhacday dhammaan waa lay keenayaa buuhi ilaahay way dafireen oo qiyaaman ma jirto waa iska khawaayid bay yidhaah ilaahay baa tusaale keenay waa aayatullah qiyaamadu inay imanayso aayad waxa u ah alardu lmaytatu dhulkaa dhintay axyaynaha roob baanu ku noolaynay wa akhrajnaa minhaa dhulkii waxaan ka soo saaray xabban raashin sida geley iyo garow iyo waxa la cunayay fa minhu yaakuluuna raashinkaasay wax ka cunayaan marka waxaa isku mid ah dhul dhintay iyo qof dhintay qofka dhintaa ilaahay baa soo noolaynaya sidoo u soo noolaynaya waxay la mid tahay dhulkan abaarta iyo biyalaantu ka dhacday ee aan wax beerkiisa dee calool la jiidaan waxba ka soo qaaday markuu roobku helo waxay duunya cunto iyo wax dad cunaaba uu isqabsanayo marka bacfiga tusaale sidaan dhulkaa dhintay roob ugu nooleeyey baan dadka dhintayna u soo noolaynaya bal isa saar haddaba waayatun lahum waa khabar muqadama waayatun lahum waa khabarkii oo muqadama bal haddaba mubtadaha mu'akhirka ahaa walardu lmaytatu dhulka dhintay aayatun lahum aayad buu yahay loo deliishado dadka dhintay in la soo noolaynayo haddaba dhulka dhintay iyo dadka dhintay halkay iska matelayaan dhulkii dhintay buu ilaahay yidhi axyaynaha waan nooleeyaa madar baan ku noolaynayaa noloshaasna waxaad ku garan wa akhrajnaa minhaa dhulkii aan waxba ku oolin baan waxaan ka soo saarayaa xabban firi raashinkii beerihii la qoday baa markuu roobku helo soo wada baxaya dabeedna raashinkoodii bay goosanayaan wa akhrajnaa minhaa ardadii dhimatay ayuu roob helay wa akhrajnaa waxaan ka soo saaray minhaa ardadii dhimatay roobkii wuxuu ka bixiyey xabban midh looma jeeda jinsigii raashinka loodhan jiruun baa loo jeedaa fa minhu raashinkaasay ya'kuluuna cunayaan raashinkaa
aan madarka ku soo saaray ayay cunayaan sida raashinkooda aan u soo saaray meeshii aan waxba ku ool baan dadkii dhintay xabaalo uga soo saaraya wajacalnaa waxaa yeelay fiihaa ardada jannaatin beero bustaana u dheh bustaanadii kala qaybi haddaba min nakhiilin baa ka mida timir wa acnaabin baa ka mida cinab wafajarnaa fiihaa dhulkii markuu roobku holay waxaan ka dilaaciyaa min alcuyuuni togagaasina waxay biyaha gaadhsiinayaan meelaan roobba helin sida webiyada iyo dee dooxyadeenna waynu aragnay roobku markuu dow halkuu helay barwaaqo ka dhigo inay biyo rogmadaan dooxa argisay iska qabteen meelaan roobba helin bay gaadheen beerihii ku teedsanaa dooxyada ayuu galay daadkii rogmanayay dabadeedna wafajarnaa fiihaa dhulkii waxaan ka dilaaciyaa min alcuyuuni togagaasina biyihii beeray u geynayaan maxay kala doonayaan liyaakuluu min amarihi bustaanadaa biyuhu gaadheen midhahooda inay cunaan wamaa camilathu may soo farsamaynin biyaha kumay farsamaysanin aydiihim gacmahooda ilaahay baa keenay ilaahay baa soo saaray wamaa camilatu aydiihim marka liyaakuluu si ay u cunaan min amarihi damiirka xaggaynu u celinaa liyaakuluu min amarihi waxaynu u celinaynaa war ardulmaytatu axyaynaaha dhulkaa waa la nooleeyey roob baa lagu nooleeyey waaqrajnaa minhaa dhulkii waxaa laga saaray xabban raashin fa minhu yaakuluuna raashinkii dhulkii dhintay ka soo baxay bay cunaan wajacalnaa fiihaa dhulka waxaa kaloo leeya jannaatin beero min nakhiilin wa acnaabina wafajarnaa dooxya waxaan ka dilaaciyey fiihaa dhulkii min alcuyuuni iloo balgacamaba dheh dooxya dheh beerihii bay galeen beerihii way sii labanlaabeen markaas liyaakuluu min amarihi si ay midhaha u cunaan markaa damiirkaa waxaynu u celinay madkuur ahaan baynu ugu celinaynaa dhulka iyo waxa ka soo baxayba amba roobku dusha ha ka helo amba cuyuuntii ha geysa biyaha amba dooxyadii biyaha ha geeyaan amba inay dhulka biyuhu waxay ka soo saareen ay cunaan bal haddaba waxaad tidhaahdaa wamaa camilatu aydiihim roobka iyo raashinka may samaynin dee kumay soo saarin wamaa camilatu kumay shaqaysanin dhulkan aydiihim gacmahooda hadda beerihii dee waxbaan ka yar qodqodnay laakiin xaqiiqa ahaan ilaahay baa soo saaray weeye waxaa jira fasir kaleoo marna maadaasaynu naafiye ka dhigaynaa wamaa camilatu aydiihim marna mawsuuliyaynu ka dhigaynaa taa hore waa taamsho wamaa camilatu aydiihim waxaas dee roob daay ee beera baxay waxay gacmahooda ku shaqeeyeen maaha waa qudro ilaahay oo ilaahay baa dhulka leh roobkana isagaa samada ka keenay dee siidhba ha ku daadiyaan oo waxba ha ku shushubaan miyaynu soo saari karaynaa inagu dee awoodu ma lihid wixii ka soo baxuun baynu cunaaye waxba inaguma soo saari karayno bal haddaba waxaad ka dhigtaaba inaynu inagu lafteennu shaqadii wax ku yeelana liyaakuluu min amarihi waxaa ilaahay soo saaray inay cunaan iyo wamaladii kiina inay cunaan camilatu ay ku farsameeyeen aydiihim gacmahooda oo dee beertii innagaa jeexjeexnay ciidda shinnidana innagaa ku shubnay gacmadana innagaa u soo jeexnay intii ay ku dareen iyo wixii ilaahay ugu daraba inay cunaan marka liyaakuluu min amarihi wamaa camilatu aydiihim iyo wamaladii camilatu waxaa kale culimmadu wamaladii camilatu aydiihim ay ku fasireen marna midhihii baa la cunayaa cinabka iyo timirta horta ugu badnaa carabtu waxay isticmaasho timirta waxa laga dhigi jiray nebiid cinabkana khamre iyo way wada tuujin jireen markaa midhaha inay cunaan iyo wamaladii sharaabkii caamilatuhu midhaha ay ka shaqaysteen aydiihim kaana inay cabbaan oo nebiidkii iyo oo timirta laga farsameeyey
iyo cinabkii wixii ayaw gacmahooda kaga dhigeen cabitaanna dee inay isticmaalaan weelkaasina wamaa camilatu aydihim oo tafsiir saddexaad subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullah mima tunbitu lardu wa min anfusihim wa mima laa yaclamuuna subxaana waxa nasahan oo in wax lala caabudo ka nasahan alladii allahan khalaqa abuuray alaswaaja noocyada abuuray kullaha midabada noocyaasha wax walba abuuray haddaba anwaacda asnaaftaba dheh subxaana waxa nasahan alladii allahan baa nasahan khalaqa alaswaaja asnaafta abuuray kullaha dhammaanteed asnaaftaas haddaba amba noocyadaasi mimaa tunbitul ardu dhulku wuxuu bixiyo ayaa ka mid ah dhulku midhuhu soo saaro dhanaan iyo qadhaadh iyo macaan ayay leeyihiin way kala wada duduwan yihiin wax bari yaroo kuusan leh wax muxuahay xidid yaroo dhuuban leh wax geed weyn ah wax geed gaabana way kala duduwan yihiin wamaca daalika aswaajtaa kala duwani dhadig iyo labbay leedahay aswaajtaasi noocyada dhir waaweyn qaar gaagaaban qaar macmacaan qaar gargaar qaar cascas dee waxaynu aragnay ee midho kala duwan way kala dhadhan duwan yihiin way kala gaagaaban yihiin way kala waaweyn yihiin dhammaantood waa laba zawj oo waa dhadig iyo lab amba gara amba ha garanne wa min anfusihim nafahoodiina aswaaj baa laga abuuray oo carruurtii aad dhashay ee aabbihii hooyi wada dhaleen unbaa midna xaaskii noqonaya midna odaygii waa aswaaj iyaguna kala duwan marka ubadkii aad dhashay ee hooyi wada dhashay ayaa iyaguna dee lamaana sii noqonaya wa mima laa yaclamuuna waxaydaan ogeyn oo iyaguna anwaaca oo dhadig iyo lab ah baa jira tusaalahaan waxaynaan ogeyn bal hal midaynu ka garanaynaa maantaan idinka xusuusiyo akhiiran laydhku maynas iyo balaas baa la yidhahdaa oo dhadig iyo lab buu leeyahay dee dabka baxaya is odhan maysid imika dee guluubka inoo tallaalan laba xadhig baa imanaya midna waa dabkii midna waa dhadig iyo lab haddaan laysu keenin labadaa xadhig ee maynaska iyo balaaska ah guluubka yar ma baxayo markaa dhammaantood dhirtani hawaday iska siinaysaa ayay labka iyo dhadigu hawada iska siinayaan oo timirta dadimka beerilay noqoto waxaad arkaysaa dhirta galoolkaa qayb dhimbiil leh iyo qayb aan lahayn quraca qayb dheemaan leh iyo qayb aan lahayn cambihii aad beertay qayb midho leh iyo qayb aan lahayn dhammaantood waa dhadig iyo labbay leeyihiin bal markaa daba aayadda u fiirso subxaana waxaa nasahan alladii allahan khalaqa alaswaaj nooc kasta oo dhadig iyo lab ah abuuray dhadig iyo labkaa maxaa ka mid ah mima tunbitul ardu wuxuu dhulku bixiyo oo beeraha ah dhadig iyo labbay leeyihiin way kala duwan yihiin oo noocyo kala duwan bay yihiin wa min anfusihim lafahoodana abuuray cajiibkaana dhadig iyo labbay leeyihiin markaa dhirta qaybta xabagta leh iyo qaybta aan xabagta lahayn qaybta midhaha leh iyo qaybta aan lahayn waxaasay ku kala duwan yihiin oo dhadig iyo labbay leeyihiin marka taas ayaa calaamadu u ah ay u daliishadaan in ilaahay awoodu leeyahay wax walba waayatun lahum aayad waxaa u ah tanziili ah kufaaru maka iyo inagaba wa aayatun lahum aayad waxa u ah qudrada alla loo daliishado alleylu habeenku waa aayad ilaahay oo waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa ina tusinaya naslakhu waxaan ka bixiyaa minhu habeenka annahaara maalinta faidaa hum mudlimuuna markaasay habeensanayaan habeenkii ayaa la moodaa inuu asal yahay habeenkii iyo maalinta
aayad soo socoto midowga asala maalintii iyo habeenku marka waa laba shaadh oo midna cadaan yahay midna madow yahay shaadhka madow markaan shaadh cad ka dul xidho waxaa dareemaysaa baleeg galabtii bay qoraxdu dhacayso shaaw xaggan ka soo madoobaadaa maalintiina xaggan bay ka soo cas tahay waxaad moodaa un aqal daah loo soo rogayo way soo soconaysaa maalintii galbeedka inagaga dhammaad markay qoraxdu dhacdo waa tasiicas marka maalintii baa la siibay oo habeen madow bay ka tagtay marka habeenkiioo meeshii iskaga jiray oo maalintu fuushanayd ayuunbaa laga dulqaaday marka waa aayatun lahum aayadu waxa waa ilaahay awooddiisa loo deliishado alleylu habeenka naslaqu waxaan ka bixiyaa minhu habeenkii annahaara maalintii ma iska tagtay faydaahum waaba iyagiioo mudlimuuna madowsanaya markaa maxuu habeenkii noqdayba meel madow iska sii jiray waa ceesaan haraggii laga bixiyey waa neefuna haraggii laga bixiyey neefka marka haragga laga bixiy maa soo hadhay hilbo casaana dee neefku caddaan buu ahaa markii hore haragga ka bixi maxaa soo hadhaya hilibkiisiioo cas habeenkiioo madowunbaa soo hadhay marka innagu ma naqaano maalintii meelay qabatay sidaynu habeenkii ugu jiro ay madow u tahay ayuunbuu wadaadku odhanaya bal waagii eega inuu caddaaday aan eedaanne dabeedna iftiin yaroo diniiqa unbaa xaggaa ka muuqanaya haddana habeenkii unbaa la hubinayaayoo maalin cad bay iska noqonaysaa marka haddee innagu intanaynu ku nool nahay maala dee caalamku wuu kala duduwan yahay waa labadaa shaadha isweydaaranayo marna madowunbaa yimi marna caddaan bay marba mid baa sarreeya marbana midunbaa laga dulbaxaya marka waayatu lahum leylu naslaqu minhu nahaara faydaahum waaba iyagiioo macnaa daakhilun mugdi bay galeen habeenkii baad moodaa inuu asal yahay marka habeenkii haddaba wuu joogaa isagoo meel ma qabto bal haddaba waxaad ku garanaysaa washamsu qoraxdu tajrii way soconaysaa limustaqarin lahaa meel ilaahay ugu talagalay ayay maraysaa daalika qorshaha qoraxdu ay ku socoto taqdiirulcasiisi allaha awoodda badan habkiisii weeye allihii alcaliim wax walba ogsoon marka washamsu baa tajri qoraxdaa socotay midowgu ma socdo washamsu marka qoraxdu tajrii iyadoo way soconaysaa limustaqarin lahaa meel ilaahay ugu talagalay bay martaa daalika socodkaas iyo jarigaasina taqdiirulcasiisi alcaliimi waa allaha awoodda badan ee cilmiga badan awooddiisa marka qoraxdu way socotaa ayaynu ka garannay xaggay socotaa limustaqarin lahaa sida tareenku meesha yaroo amba tuubo ayay qoraxdu dhex maraysaa amba wadday leedahay bal haddaba jarigaasi dee waa halkaa ka yimi ee halkan ka dhacay makaasaa mise waa jarigi kaloo 12 bilood laahoo 360 god bay ka soo baxdaa 360 kaa god waxay naga xigaan bari bay naga xigaan marna xagganay u fogaataa marna xaggaasay u socotaa meesha ugu dambaysa markay gaadho ayay xagaa noqonaysaa way soo noqonaysaa haddana marna waa tabarta ka marta markaan mustaqarkaa sheegayno qoraxdii way socotaa ilaa meel ilaahay ugu talagalay ay gaadho 12 bilood markay 12 bilood sidaa u sii socotay amba gudahooda ayay soo noqonaysaa ma sidaasaa mise halkaas socodka ka soo bilaabmay ayay soconaysaa uun oo kaasina waa socod kana waa socod kale
labada fasir waxay yiraahdeen qoraxdaasi way soconaysaa ilaa intii qiyaamadu dhacayso weeymi washamsu tajri qoraxdu way soconaysaa ilaa mustaqarrin laha ilaa maalinta ilaahay ugu talagalay qiyaamadu ay dhacayso fasirka hadaynu qaadano waa sidanay u socotay nooji dabadeedna meel ka soo noqotay haddana wadaan subaxdii ka soo shiriyay sameynaysaa sidaasuna weligeed bay isba taagto aqliga kaasa u dhow aqliga ka ugu dhow waa ka sababtoo waxay yiraahdeen culimada kutubta inoo qortay imika inoo salaad maghribeynu ka baxnay salaada maghribeynu ka baxnay qolo waa u duhur qolona waa u subax qolona waa u cishaay qolona waa u casar hada shanta salaadood salaad walba saynu maghribka meena tukanay qolo cishay tukanaysay qolona waxay tukanaysaa casar qolona duhur qolona subaxba akhiiran maanta inuu ognahay inuu Mareykanka kala horeyno 8 saacadood imaaraadkan inuu hal saac kala horeyno saasun daa u kala horeysi markay qolana duhur u noqoto qolana casar qolana subax qolana maghrib qolana cishaay miyay qoraxda dhacaysaaba tabii wata socodku ku jirta oo markay inagu maghrib tukanayna deena dadku maghrib wada galaan bay caalamku biyaajimay haday dhacayso markaynu cisho wada galana deena cisho wada tukanay mar hadii aanu islaamkii isku maghrib ahayn oo aanu isku cisho ahayn oo aanu isku subax ahayn oo aynaan isku duhur ahayn oo isku casar ahayn shantiiba mar lagu wada jiro ma dhacdo qoraxda marka way socotaa way marka inagu bay naga qarsoontay caalam kalun bay marka dad wax fog qaadato sabada u baxdo waxa laga yaabaa waxay oran jireen odayaashii hore caalamka Ingiriiska qoraxdu kuma dhacdo waan yaab jiray marka eriga maqasho waad yaabaysaa wad isweydiin hadii la yiraahdo caalamka qoraxdu kuma dhacdo hadii la yiraahdo wad yaabaysaa laakiin hadii uu meelo badan ka taagan yahay oo kala fog kama dhacayso Soomaa hada meesha maqribka deemka ka taagan Ingiriiska ka hargeysa ka taagan baa duu isagu wada xukumo oo ka Mareykanka ku darsado oo kaalkay noogu fog ku darsado meelo badan buu ka taagnaanay marka balka ugu dhow bay qaadanayna wa shamsu qoraxdu tajri way soconaysaa limustaqarr lam ta bi macna ila kadhig ila mustaqarrin laha illa meel ay ilaahay ugu talagalay ay gaadho qiyaamadu dhacdo socod bay ku jirtaa dalika socod kan istaagalahayn تقدير العزيز والله أود بدن قدرتيس العليم فسر كلا جرا أو بخاري مسلم كسوغان أينها المامي كرين النبي عليه الصلاة والسلام معلم بوحويدي صحابة كم ذا أبادر لولين شري ور أبادروا قرحوا ما تغانا مركي دعوه ماشي تكتو إلهي الرسول بأوبو كويري wuxuu ku yiri qoraxdan markay inagayna dhaafto arshigay tagtaa hoostiisa ilaahay buu sujuudaa oo haddana intayna halka dhaafin caalamku biyaajmii 24 saacadood uu sanad ku wareegay horta 24 kan waa habeen iyo maalin qolo walbana intooda badan waa 12 saacadood intooda badan waxa ku kala duwan waxa yiraahdo waa noo habeen waa noo fiid waa noo cas waxa la yiraahdo oo bisha Ramadaan markay bilato 24 saac gudahood uu islaamku wada soomiyaa 24 saac gudahood ayuu ku wada soomiyaa way isku soo gaarayna macna soomki marka nabiga yiri qoraxdu abaadaro ma taqaana meeshay tagto ilaahay rasuul baa yaqaan buu yiri markan ay qarsoonto way sujuudaysaa ilaahay bay u sujuudaysaa dabadeedna ilaahay baa wuxuu amrayaa noqo oo halkii ka soo baxadaba markay qiyaamadu dhacayso cidiba juuq bay u oran waaysaa ha sujuudsanaato halkan ka noqon baa la oranaya dabadeedna xaggan kale ka soo noqonaysa xadiiska laftiisuna waa xadiis saxiix ah oo Bukhari iyo Muslim ku sugan والقمر
qoraxdii washamsu tajri limustaqarrin laha dalika taqdiru al-aziz wa awood ilaahi rume wal qamara dayha qadarnaahu ilaahi wuxuu yiri waan qorsheeyay isagana socodkiisa manaazila 18 god ayuu marayaa xataa caada ilaa uu ku noqdo markuu dhamaanayo kal urjuuril qadiimi sida laan yar oo qallashay oo kale balse inuu la wada socono dayho de markaa bishu waa bilkow galabta koobaad aad ba looma wada arko meel yar bay ka noqotaa Soomaha oo dadka joogiisa in yar ka sareysa galabta labaad halkii meel in yar ka sareysa hadana ka noqotaa galabta saddexaad ayna bil saddexaad gurigaagana way ka kaxaysaa guri kana la kuma gaarsiiso hadana meel halkii ka yar sareyso bay ka noqotaa siday u noqnoqonaysay u soo socoto habeenba galabba meel bay ka noqotay way weynaati gudcurkow intaanay gaarin ayay waxay noqonaysaa dayax weyn oo meelaha barta ka marayaynu aragnaa 14aad baynaana markuu 3 habeen kaamil ahaado ayaynu gudcurkow ka bilaabmaa dib u yaraada hadana حتى عاد كالعرجول القديم إلا ولان يرو قلشي أو ميل لدغاي نوقدو وا كبسدي قلبتي بلاتي سي لميد ايوب قرخدا ير uga soo horeynaya manaasisha 28 ee uu maraya waa kuwa uu ka noqonayo isaguna ilaa waa tii bilatay waa tii markii dhacday galabtii labaad in yar bay way dhacday hadana 28 manzil oo ay habeenba meel ka noqonayso ilaa ay gaariso gudcurkow manaasishaas isna maraya bal hada matniga qabso wal qamara dayh qadarnaahu macna qadarna sayruhu socodka dayha waxaan u habeeyay oon u qorsheeyay buu ilaahay manaazil uu leeyahay oo tan laba habeen dibata abadayx waxa laga yaabaa haday 29 ku dhamaanaysana hal habeen baynaan arag marar laba habeen la arki waayo 28 habeen la arkaana way jirtaa marka manaazil ilaahi ugu tala galay ayuu maraya isaguna wal qamar qadarnaahu manaazisha sidoo uu yaraa uu weynaaday kaamil buu noqday xaqan buu inaga maray uu yaraaday meelahan buu ku dhamaaday hadana galabtii ugu dambeysay dayaxaynu aragno in yaro halka ka soo baxaysa weeye subax in yaro subax ka soo baxaysa weeye faa'iidadaynu qaadanayna tafsiirka wal qamar qadarnaahu manaazila waa in hab ilaahay uu ku socdo oo godad uu leeyahay habeenba meel uu daga weeye oo ka noqdo حتى عاد إلا مركو دمانيو نقونيو كالعرجول القديم سيدا اللانير أو اللانتميريدو أو هوريسي محلو جدا قال شيء حتى اللانير عردنا قويسو أو بعد كلا ديغو لانتاسوي كان سوبيسا لانتي مركو قال شيء سيدي وما توسنانيسو sida bisho kale ayay u qalloocsanaysaa sida dhigta guriga oo kale marka dayixii buu ilaahay noogu miisaaliyay wuu yaraaday ilaa laan yar oo qallashay uu eegaaday marka oo bil uu eeg kal urjuul qadiimina waa sida urjuunta maxaa la yiraahdaa laamaha timirta oo marka horeba xoodeen baa markay qallalaan way sii gutaan la shamsu waa taba qoraxda لا الشمس قرحدي لا الشمس ينبغي لها قرحده وما هبونا suurtagalna ma aha an tudrika al-qamara in dayaxa gaadho qoraxdu 12 bilood bay hal wareega samaysaa halka dayaxu bisha uu wada wareegaba marka qoraxduna way gaabinaysaa xaga manaasisha iyo socodka dayaxuna uu dheeraynaya qoraxdu waxaynu aragnaa waa tamaalinta tilmaanto waa ibnu
ابن النهار قرح ضيحنا هبين كبشغية وابن الليل marka habeen iyo maalinays ma soo gaaraan qorraxduna dayaxa ma gaadho laakiin dayuxu intuu ka daba yimaado qorraxda soo gaara bal hada matniga qabso la shamsu qorraxda yanbaqi laha uma haboona oo suurtagal maaha aan tudrikal qamara inay dayaxa gaadho laakiin cagsiga ilaahay kama hadal dayuxu uu gaari karaa qorraxda uu ka dheereeyaa laakiin qorraxi ma soo gaaraysa dayax wala leeylo habeenkuna ma aha saabiqu nahaari maalinta mid ku soo qadimaya oo imaka iyadoo de 14 dayax yahay oo habeen tahay qorraxi uma timaado مثل واسكين تاوا marka qorraxdu dayaxa ma soo gaadho وده habeen ku dayax goorma la arkay habeen ku socda Soomaa habeenkiisu uma iman qorraxdu laakiin dayaxu subaxdii dabeeqtuur ka halkaas dayaxu taagan tuugtaaba dad ku baarate ilaa taa bishii 12 maalmo iyadoo bil halkan maraysa dad sidoo kale fiiqan yahay dayax wad arkaysaa oo iyadoo maalin dayax soconayo iyadoo bil meelan la istusayeen garanaa wada dadku isku baadhay dadka xumee marka iyadoo dayaxu maalinta uu soo gaara laakiin maalintu dayax ma soo gaadhiso wala leeylo habeenku ma ha saabiqu nahaari maalinta mid ku soo qadimaya saynu duhur u tukanina de habeen ma noqoto saynu duhur loogu jiro oo maalina habeen ha noqoto habeenkiyo maalintu iskuma soo qadimayaan marka habeen ma soo gaaro maalinna habeen ma soo gaaro marka waagu casaado habeenkiina xagan uu ka sii madow yahay markay qorraxdu dhacaysay xaq ka sii castaay habeenkuna xagan uu ka soo madow yahay isma soo gaariyaan marka iyadoo quraanku inoo sheegay yuuliju leeyla fi nahaari wa yuuliju nahaara fi leyl waa saacad wareegaysata oo marna maqribka la tukado 6 barka marna 5 barkii u dhow leedaamay nusu saacaas ilaahay bayna baray inuu marna maalinta ku biiro marna habeenka oo habeenkiina jiilaal ka badan ma xagaagiina mid ka kala maalinta badan marka de markan kowda duhurnimada la tukanayo iyo marka 12 iyo 20 la tukanayo halka saacay warwareegaysa jirto marna xagga habeenka marna xagga maalinta laakiin habeen iyo maalin is soo gaaraan ma jiraan wala leeylo habeenku ma ha saabiqu nahaari maalintii oo dhamaan habeenku mid soo galaya ma aha wa kullu sababta aan habeen iyo maalin isu boobaynin ee aan dayax iyo qorraxdu dayaxaani soo gaarinin waxa weeye وكل دمان في فلك أي ليهم بيسبحون ضبالنا سكهر من ما يانو اسمنا قدم مدولبا فلك إلهي وطلق لهم مريعيا هذا بالله بيه طبعا كبيرات إنه ده حال مربي وريكته قرحه لكن ده يحبش جوده يدو دمية تصالحان كمثل مصر أو كلا جماعة الإسلام كوجه الرئيسي ما كان يصدق هنا يجا وجه الرئيسة dadka qorraxda caabuda waxay sameeyeen makaniisad ilaa halka hawd ilaa waqooyi taaqada yar yar oo taltaloolo leh oo wax yar yar isu jira wax yar markay xaggan u fogaato qorraxdu meel yar ay uga soo gashay leedahay makaniisadu 360 god oo yar yar bay makaniisadii ku sameeyeen ilaa hadday jiraan marka qorraxdii intay marna xagga ka soo bilowday sidaa u dhamaysaa 12 bilood marna intay xagga ka soo bilowday xagga u dhamaysaa marka marna inaanu ka qorraxda caabudiya daaqadii yaridaan iska waayin bay u dalooliyeen iftiinka yaray ugu helaan godadka yar yar hadii loo fiirsado marka aduguba u fiirsato qorraxda bixitaankeeda subax walba gurigaaga hadaad ku cabirto maalin walba waxaad arkaysaa iyadoo saxan la moodo guriga keenaha ka soo baxaysa hadaad u fiirsato markuu sanadku dhamaanayo gurigaaga geeskiisa kale iyadoo ku beegan marna masaajid guriga waxa gaas oo harka u bixinaya
marna xaggan buu bixinaya marka bartakana harba lama arkayo marka jarigaasay ku kala dheereynayaan halkuu isagu ku dhameeyay bisha gudaheedii isagu wuxuu ku dhamaa iyadu waxay ku dhamaynaysaa 12 bilood wa kullu fi falak yasbahuna dawasida falak bay dhamaantood macaahidigu allaala waxa wareega wa kullu dhamaan fi falak falaku waa wax wareegsan oo mustadiira oo aad moodo isagu inuu wado qoraxda iyo dayaxa iyo tusaalaan guriyaha dabaqyada qaar salaam baa lagu koraa qaybna tuush yar baa ku qaaday guriga hoostiisa ku geynaya waxa jira xarig laba lagdoonaya wadada istaagtaadu adoo iska taagan barta ugu sareysa aad tagi karayso imaga matal madaarada oo kale de shandada tog yar rugmanayo miiskaas oo kale soconaya ayaa shandadaha ku barbar qaadsiinay hadaad isku taagto adoo taagan adu baad gaaraysaa halka ugu koonaysa madaarka bahal yar badhad yar oo wareegaysa sidii baashi ayaad iska taagan tahay adigu ma dareemaysid inuu socdo marka falagu amba qoraxdii baa saaran oo isaga wareejinaya amba iyada sida tareenka u dulmaraysa labaduba waa wax ilaahay waa wax suurtagal indhihiina aan ku aragnaa rafrafka oo kale waxa la yiraahdo wa kullu fi falakin falag gudihi wax wareegayo mustadiira amba wax u samaysan sida foostada dhex maraysa amba waxa soconayaba sina uu iska taagan yahay iftiinkii waayatun lahum ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu waxa aayad u ah qudrada ilaahay loo daliishado anagu xamalnaa dhurriyatahum awlaadoodii waxaan ku xambaaray filfilkil mash'uun doontii buuxday ee waqtigii nabi nuux dhurriyada waxa la yiraahdaa awlaada marmar baa waalidiintana la oran karaa ilaahay baa yiri waayatun lahum ibn aadanka aayad awoodiisa loo daliishado waxa anagu xamalnaa dhurriyatahum waalidiinta dhashay ilma nabi aadamka caalamka buuxiyay maanta waxaan ku qaaday filfilki doontii al-mash'uun la buuxiyay waxa la yiraahdaa aabaha koobaad waa nabi aadam aabaheena labaadna waa nuux markii qoomkii nabi nuux la halaagay saddex wiil oo ilma nabi nuuxa ayaa dadka ka haray ilma nabi aadamba saddexda carruur Haam iyo Saam iyo Yaafith la yiraahdo baa dhalay maanta waxa caalamka jooga waxa qayb gaagaabantay ee qayb dhaadheertay ee qayb midmadowday ee qayb cascastaay ee nooca waxa dhalay saddexda carruur isku aabiyo hooyada ee walaalaha marka ilaahay wuxuu leeyahay bal dadka caalamka waayatu lahum awood waxa aayad waa lahum ibn aadanka nabi maxamed la zabantay gaaladii maka aayad waxa u daliishadaan bacsiga anagu xamalnaa dhurriyatum waalidiintii dhashay ee ilma nabi nuux waxaan ku qaaday dhurriyatum waalidiintii dhashay ee aabada ahayd filfilkil mash'uun doontii la buuxiyay waxa laga buuxiyay doonta waxa laga buuxiyay saddex dabaq bay ahaydoo 8 qof oo baal saaray ibni aadan xagga sare khaanada dhaxana xoolaha ay haayeen oo geel yaar iyo looba la saaray khaanada ugu hooseysana bahalaha ay haayeen sahaydii ay ku nooleen lahaayeen ibni aadan iyo sahaydii xoolaha iyo tii bahalahaba way siday filfilkil mash'uun marka doon buuxda waxa loo yiri de waa bahasha isu geeysay dadka iyo wuxuu cuni lahaa xoolaha iyo waxay cuni lahaayeen dugaaga iyo wuxuu cuni lahaa bay wadis hatta bihi hatta tabki hatta wixii lagu kars alla la wixii oo filfilkil mash'uun waa farsamo ilaahay uu nabi nuux baray marka ilaahay baa awooda sheeganaya waayatu lahum aniga ayaa xamalnaa ku qaaday oo u abuuray ikhtiraacay farsamada lahaa
filfilkul mashcuuni doontii buuxday marka nebi waxaa sameeye macallin ilaahay baa u ahaa sidaadhe ilisuu madoon buu yaqaanay masaabiir buu yaqaanay وخلقنا الله وإلهي وحانو أبوري حضنا علم النبي آدم من مثله دون تا النبي نوح مدلمده وواطا مانتا مراكيب يدونيو الله لو حاسي وفرسما إلهي ونبري بركاده حتى بني آدم كاسمية حضنا إلهي بيدو وخلقنا الله من مثله دون تي النبي نوح مدلمدان وأبوري adoonkii samayn lahaa buu abuuray ilaahay wixii laga samayn lahaana isaga abuuray maxay isla noqotay ilaahay baa abuuray marka fasir kale wa khalaqna lahum min mithlihi ajira de safinatu sahra iyo safinatu al-bahr safinatu al-bahr wa maraakiibta iyo laashashka iyo dooyaha safinatu al-bahr wa awrta iyo fardaha وخلقنا لهم من مثله وخلقنا وحن أمر لهم يجا من مثله فولتان كوح كلام ذا وحن وابو ريو ما يركبون وحي فولا ده هو أورك إيو فرسك أو إيو ده جديد كمان أنت تشربه إيو وحفر بدر ده ما أنت حتى ده وتلي هي صواريخ لصارت ده حق عمد الله فولا يجري خلقنا لهم من مثله ما يركبون حتى جديد كبا صوق عليه وإن نشأ حدان دونه إلهي دونيها نغرقهم أنكو غرقنا يابا ودون تسيو سعون السان دي تشيمبا وحتى إذنكو يسوق عادتان دون تنين سمايستين أودي ننا يكو سعون يسو وإن نشأ دان دونه نغرقهم وغرقنا يا ودون تيبان دي تشيمبا فلا صريخ مدو غرقار يا مجر اللهم إياها ولا هم ينقذون قرمتهن هلي مايان صريخ معنا عدو قيل سو غرغارتا ولا هم ينقذون عيدنا ما بدبادينيسو هذا ما حيكون بدباديان فلا صريخ اللهم عدو غرغارسا ما جرتو ولا هم ينقذون لنا قرمن مايو الا رحمه منا نحريس الله دونتو كغا بدبادسا بدا يوم متاعا الى حين qof waliba muddada Ilaahay ugu talagalay in ay noolaadaan oo dabadeedna ay iskaga gooshaan oo safarada ku soo kala qaataan oo idaa qiila lahum gaalada ma ka joogta hadii lagu yiraahdo maxay hadii lagu yiraahdo ittaqu ma bayna aydiikum war cadaabka idinka horeeya adduunyada ka baqa hadii lagu yiraahdo wama khalfukum cadaabka dambe ee aakhira ka baqa hadii lagu yiraahdo لعلكم ترحمون سليدين كنا حريستو هي ويجيسنيا hadii lagu yiraahdo wayda qiila lahum wadaadadu haday ku yiraahdaan intaqoo ma bayna aydiikum war cadaabka idinka horeeya adduunyada ka baqday cadaabul qabri leh wama khalfum kaydinka dambeeya ka baqay cadaabkii aakhiree weynaale la'allakum turhamuuna maxay yeelayaan way jeesanayaan baynu qadareen aaradu in i'raad ay sameeyeen maxaad ku garanaysaa aayada dambe وما تتيم وما تماطم من آية من آيات ربي آياتي ساي إلا هذي تمتكانوا حين عنها آيات تنزيلية معرضين كوي كتشز آياتها آيات كون تكوينيو تنزيلي بالإرادة آياتها إنه كواخيان كورن شرين بي كدغنت للذين آمنوا حيورن شرين أن ندعموا وحن وحسينا من ميان نسينا لو يشاء الله هدي إلهي إرادين لا أدعمه وقود الله موقف هدو إلهي دون يينو وحلو وحسين لها أو قديي أيان وحسينها إن أنتم إذنكم متين لا في ضلال مبين وحيليه مكلا فقرة وحسية إلهي أبو ارتبا قديي أن ندعمه من لا يشاء الله وأدعمه من مدي إلهي هدو دون يقود لها من أنو أنتون وحسية إلهي أبو ارتقدي وحبوا ديبي مايو هذا نترادان كاو وحسية إن أنتم إذنكم متهدين الله في ضلال مبين بعضي عدبا كسوغنتهين marka waa isdiisay u leeyihiin ilaahay baa dadkii qaybna fuqara ka dhigay qaybna wax siiyay way quluuna marka la yiraahdo walidin cadaabi doona way quluuna waxay oranayaan mata hadal wacd horta ballankan qiyaamada sheegtaan waa goorma
إن كنتم صادقين هذا رلوتين marka jamacan ay ku leeyihiin way yaqooluuna mata hada alwa'd kudus tawam islaamkii nabiyadoodii ayay ku oranayaan mata hada alwa'd ballanka qiyaamadu waa goorma saacade sanadkee bishii maalintee in kuntum saadiqiina ilaahi baa ka jawaabay qaala ta'ala ilaahi wuxuu yiri ma yanzuruna masu macna ma yantadiruuna hada masugayaan buu ilaahi yiri illa sayhatan waahida wa hal qayla oo israafil suurta fuufo تأخذهم ويقبض دون تصورته وهم يخصمون يجوا مرمية يجوا جيل أورت كسيدينية وقرروا سيهين والمريا كليبسنيان أيوم بصور تلوغ فري مركز صورة دعوة فلا يستطيعون مكريا توصية دردارا قف هليلين دردار ما مجرد ولا إلى لم يرجعون qof gurigiisii ku noqon karayaan ma jiro waa suurta hore lagu wada dhimanayo warnafiqa fi suurti baa la afuufay faydahum wati dambe faydahum waba iyagu min al-ajtaas xawaalaha ila rabbihim allahooda yansiluuna uga soo degdegaya qaalu tabadeedna markay xawaalaha ka soo baxaanba يا ويلنا الله جيجي من بعثنا من مرقدنا حوالها يجي نجسوا بعثي بورن دونان تبنا ملاك تقولن دونتا هذا ما وعد الرحمن بعث يعني قيامة عادية إلها الجهور كان هذا بعث يعني ما الذي وعد الرحمن وكيل هاي بلن قاضي وصدق المرسلون أنبياءنا هم بيشيجين إن كانت إلا صيحة واحدة قيلك اليوم بانيا هاي فإذا هم وبيجيو جميع دمان الذين أكتئذا محضرون ويكوي لصوت وي وبيجيو مرك لصوت ولا محدعيا وحلقوا رندنا فاليوم مانتا لا تظلم نفس شيئا نفنا وحبل لك ما ظلميه ولا تجزون عدنا لغو أبال ما يو إلا ما كنتم تعملون إلا جزاء ما كنتم تعملون قف ولو بوحات قبصتي مركز أدوية شوكتي أيا لغو أبال مرينيا داد قال هيد نار ده هدي كلانا جنة ده